iyadoo maalintii shalay ahayd ay xukuumadda Soomaaliland shaacisay waxqabadkeeda ku aadan muddada 120ka cisha ee ay jirto xukuumadan cusub. Haddaba maanta waxa telefishinka SBS siinayay waraysi gaar ah siyaasi Maxamed Cismaan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliland kana warbixiyay waxqabadka muddada 120ka cisha ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana kamid ah hadaladiisii sida tan. wax ka waranaya 120 cisho ay xukuumadda u hogaaminayeen mudane Muuse Biixi Cabdi ay talada dalka gacanta ku haysay 120 casho waxay sheegeen inay wax qabad balaaran qabteen hase ahaatee bulshada inteeda badan wax ku tilmaameen inay 120 cisho ahayd 120 cisho la handaraabay Soomaaliland 120 cisho dalka wuxuu maray xaalado fara badan baa la soo gudboonaaday dadku jihadi baa ka habawday dawladnimo waxaanu leenahay 120 cisho idin aragnay bal inta dambe bal sidaad wax ku hagaajin lahaydeen qaabkan handaraabka aad wax kaga bedel lahaydeen kamadaxweyne mustaqbalka la kaalay geesta kale siyaasi Maxamed Cismaan ayaa ka hadlay loolan siyaasadeed oo maalmihii u dambeeyay ka dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadan warasaabka gobolka Togdheer waa nin dhalinyaro ah waa nin aad iyo aad loogu hanweynaa hase ahaatee dhaqan wanaagsan buu la soo baxay oo ah inuu bilaabay xirxirka saxaafadda madaxa bannaan barasaab haddii aad bilowdo dagaalka saxaafadda xilka ku sii fadhiimays kursiga waxaan ku leeyahay iska ilaali saxaafadda waxay ka mid yihiin qayb ka mid ah horumarinta gobolada bari ay ku jiraan saxaafadda gobolka Togdheer ka shaqeysa marka waxaan ku leenahay hana isku dayin cid walba inaad u jawaabto oo aad falcelin markiiba samaysay sababtoo ay mas'uul baa tahay mas'uul qaran baa tahay gobolka Togdheer baad madaxweynihiisa tahay isku day inaad samayso dulqaad fara badan isku day inaad samayso tanaasulaad fara badan inaad dadka soo jeedato isku day mucaarad iyo muxaafid ba inaad soo jeedato isku day Axmed Nuur Ciise Maxamed wakiil wareedka telefishinka SBS magaalada Burco.